xilli la filayo in la gudagalo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo qabanqaabadoodu ka socotay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay 13 xubnood ee guddiga doorashada Galmudug oo xildhibaanada Galmudug ay 19 bishan cod gacantaag ah ku ansixiyeen xubno ka mid ah guddigan oo uu shir gudoominayay guddoonka baarlamaanka oo kulan ku yeeshay xarunta guddiga ee magaalada Dhuusamareeb ayaa shaaciyay in ay doorteen guddoonka iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada waxaana arintan ka biyadiiday xubno kale oo guddiga ka mid ah kuwaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb 13 xubnood ee guddigan waxaa qayb ka ah 5 xubnood oo ka mid ah xildhibaanada ka soo galay dhanka Ahlus Sunna kuwaasi oo ka biyadiiday sida ay hawshan u socoto saldhigga khilaafkan ayay la xiriiriyeen faragelin ay ku wada dawladda nidaamka doorashada iyo isku day ay ku doonayso in mar kale guddoonka guddigan ay iyadu ku soo xusho taasi oo xildhibaanada ku jira guddigan ay iska diideen sida ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanadan oo warbaahinta la hadlay xildhibaan Muxyidiin Sunni oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada ee arintan ka soo horjeeday horeyna u ahaa xogayaha guddiga doorashada ee suurageliyay doorashadii guddoonka baarlamaanka ayaa warbaahinta kaga waramay arrimaha khilaafkan keenay isagoo carabka ku adkeeyay in dawladdu qorsheynayso afduub lagu sameeyo doorashada waxaan rabaa inaan intaas raaciyo doorashadii hore ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee anigu aan ku jiray shakhsiyan aan ku jiray guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ninka ay hadda xildhibaanka ay hadda ka dhigeen ay dhaheen waxaan ka dhigaynaa gacal gudoomiye gacal uu magacaabay inuu yahay gudoomiye ninkaas xildhibaankaas laftirkiisa ayaa wuxuu ahaa gudoomiye guddiga noo ahaa laakiin markaas wuxuu ku yimid si doorasho caadi ku yimid saasoo ay tahay guddigaas waxaa ka jiray laftirkiisa faragelin badan iyo buuq badan iyo culays badan baan ugu furnaa annagu intaas waan celcelinaynay oo waxaan rabnay doorasho qurxoon in ay dhacdo hoggaanka baarlamaanka aan si wanaagsan u dooranno Galmudugna wax buuqa iyo wax dhibaato aysan ka dhicin annagu intaas wax badan baan xeerinaynay oo ilaalinaynay laakiin waxa dhacday maalmihii doorashada oo la soo dhaafay in qaabkii xataa guddigaas lagu dhisay iyo qaabkii doorashada u dhacaysay annaga wax badan oo aan ognahay baa jiray oo ahaa in culaysyo badan lagu saarayay guddiga xubno ka mid ah inay waxyaalo kala sameeyaan ayada laftirkeeda aan ognahay waxyaalaha anaga aan raalli aan ka ahayn oo guddiga qayb ka mid ah anagoo ah aan raalli ka ahayn baa dhacay oo ay ka mid yihiin in xilligii doorashada ay dhacaysay la joojiyay doorashadii oo socota markii gudoomiyaha baarlamaanka la doortay ayadoo anagoo guddigii oo shaqadii wadna oo gudoomiyaha guddiga inta talooyin kale iyo hawlo kale la joojiyay meeshaasna anaga sidaan aaminsanahay ay ka dhacday isdawmarsiin iyo corruption waliba hoolka dhexdiisa ah ay ka dhacday marka waxaan rabnaa anaga in doorasho xalaal meeshan ay ka dhacdo oo qaladaad la sameyn oo buuq la sameyn oo waxyaalaha dadka wax loo sameeyay ay doorashado noqoto dadka looga shaqo qabo ama dad gaar ah inay wataan ama group gaar ah ay u shaqeynayaan ama koox gaar ah ay u shaqeynayaan ama murashax gaar ah ay u shaqeynayaan mamnuuc way ka tahayba in la yiraahdo ama guddi baa tihiin ama hoggaan guddi baa tihiin marka insha Allah ta'ala anaga diyaar waxaan u nahay doorasho xalaal inaan sameeyno ka guddi ahaana waan sameyn doonaa waana qaban doonaa shaqadaas hadii la yiraahdo musharaxiinta qaar ee ka qayb galaya doorashadan ayaa waxa ay hore walaac uga muujiyeen sida wax u socdaan waxaana arrimahan oo idin laga yaabaa in ay dib u dhigaan waqtiga doorashada Cabdullaahi Warsamro, Somali News TV, Dhuusamareeb.